يبحن كجونا ولفلو لباهي يتابع دفاتا عمي وربا بدي كدافي كديك جران دي دحنتو يا هايسا والله دير الكيسو كديك جران دي دحنتو يا هايسا والله دير الكيسو أبغى يا هندي قولي من طالبي على تنتظر أبغى يا هندي قولي من طالبي على تنتظر داود يلو حد احتاجنا يجرك مقردة النساء برنامج كنت عنها تاريخ أيام الصعب برنامج كنت عنها تاريخ سيدة ضرب ولا سعتين سرب مركي لو قفل جيلك مقردة النساء أيو كبحي ما أنت جيلك هو حنون نبت أبو وقتك هو حد جيلك أنون نبت إن النوجا إنه بالحالك هو كبحي يسدي أو بحي يمركو دبده أو بحيال فوق قبطي وحي كلامكم ماي أم بس دي عندما هالكن توجي مركز غير كاي فقشتو إيانا أي مركز دمر هادنتي إيو عادي أي كدونيين سلوبية صاحب في حلقة أي لجارين سلوب جيل كاد ما أنت محتاج أنت أيوة جيل كي أتكبح ستة أدو ديلك عندما دي فقشت سيدي على التعاطي يمكن ترين كاد وسيدي بسم الله الرحمن الرحيم درين كيغو آد بو فيعان yahay waana wax ilaahay loogu shukriyo maanta ay ka soo wareegtay 19 sano jeelkii oo xor ah oo dawlad la yiraahdo Soomaaliland ay gacanta ku hayso oo ah dawlad aan wax ka dhaliyay waxna aan uga soo halgamay waa ii mahad ilaahay anoo caafimaad qaba laxaadkaygiina dhan yahay kuna guuleystay hamigaygii aan dilka ugu jireen halkan inaga dambaysa aan ku beegsaday inaan ku dhinto hamigii oo ii suura galay oo maanta ciidamadaydii inay garab taagan yihiin meeshiina ay xor tahay oo example maanta askarigaas wuxuu ahaa askarigii cadowga shalay maantana waa askari saaxiibkaya waana askari shaqadii aan jeclaa haya marka aad bay u fiican tahay dhuxulow fikirkayga iyo dareenkayga aad buu sareeyaa maanta waliba jeelkiina la bedelayo oo uu 6 sano soo dhisnaa shalay uuna la dhigay dhagaxii ugu horeeyay aad baan u faraxsanahay waxaan jecelahay daawadayaal inaynu tagno goobtii uu ku xidhnaa sulub meeshan waa maxay haddaba waxaan jecelahay guud ahaanba sheekada markaad jeelka soo gashay berigaa lagu soo xidhay halkii markii horeysay lagu keenay ee wax lagaga qoray yaase wax kaa qorayo qolku wuxuu ahaa qolka waxa fadhiyay taliye afan jilic nin loo oran jiray ayaa fadhiyay magana taliye Soomaaliland fadhiya waxaanay ahayd bishii waxaanay ahayd halkan silsiladan markaa ku xidhnaa halkan taaganahay ayaan exactly taagnaa markii la soo galiyay gaariga silsiladii halkaas qaar kamid ah laga furay dabeetana gudaha la galiyay oo albaabkana laga galiyay waxaan inu galeynaa imika qolkii waxa weeyaan qaybtani waa qaybaha jeelka qaybtaasi waa qaybtii hore anu waxaan ku jiri jiray markii hore qaybtaasoo qadka la oran jiray halkan ayaanu ku jirnay waxaananu ahayn meel hadla waxaanu ahayn 8 maxbuus 2 maxbuus waxay waa kuwan aqalada maxaabistu واحد ما ساعد وتبكي ماي ما كان قبت وطا قول كاسر كجرا قولka dhanka wadwad waxa lay keenay markii jeelka lay soo galiyay qolkan markii ugu horeysay jeelka soo galay qolkan waxa la yiraahdaa halkan waxa la yiraahdaa qabta jeelka imisa ku jirta qolkan aad kooban imika waxa laga dhigay suuli سألكينه لكن ما كانوا بحقب مو لهاي الطريق واحد كل شيء من اللحن ها اللحن من كفر دينه أفر كم من اسمه كيس بام
dabeetana maalin maalmaha ka mid ah ayaan dibno maalin maalmaha ka mid a iyadoo nala tirinaya ayaa korneylkii jeelku halkan soo joogsaday dabeetana saaxiibkay maxamed oogle allah raxmaan raaximiin ragga la dilay ah ee kiiskaygan ay dawladdu u toogatay ah ayaa qolkan ku jiray dabeetana daaqadaasu aan ka doonay inaan ka soo qaata kitaab qur-aan ama kitaabkiisaa u qaadanaya ayuu taliyii arkay dabeetana wuxuu yidhi xidha ninkan gacmaha ka xidha kitaabkiina waa layga qaaday gacmaha layga xidhay dabeetana waa lay dhaqaaji wuxuu yidhi waxaad geysaan allakajeed waa baaster ninkani allakajeed geeya dabeetana taliyihiibaa 2 askar waa laygu daray halkaasaa lay mariyey waxaan qabay xundhur oo caloosha ayaa dhiig iga socday dabeetana waxaan ku dhacay godkaa yar baan ku dhacay iyadoo gacmahan aan ka xidhanahay godkaa yar markaan ku dhacay askartu isku naxariis maaha mid baa isoo toosiyey kii kale dhabarkuu igaga joogsaday godkanaan ku dhacay oo qashinka iyo biyaha ku soo durduraan ayaan ku kufay anoo gacmihiina ka xidhan 2 askari baa markaa halkan taagnaa oo i waday taliyuhuna wuu daba socday 2 askari mid wuu isoo qabtay midna dhabarkuu igaga joogsaday marka taliyihii baa yidhi garaaca ninkoo haddana ulaa laygu dhuftay waa lay kaxeeyey hareeraha layga galay waa lay waday allakajeed baan ku soconnaa oo lay geeyey halkani waa halkii uu korneylku iigu hanjabayey ee uu lahaa halkan uu dadka dhex joogo ka saaro allakajeed geeya laakiin annagu qolkan waxaan u bixinay allaujeed allakajeed waxay maxaabiistu uga bixisay wuxuu ka soo jeedaa jeelkii oo dhan wuxuuna ku hayaa gidaarkan oo afka ku hayaa markaa wax bini aadam oo dhulkan maraya ma jiro afka iyo albaabkuna way isku dhow yihiin dabeetana qof dhuumanaya askari yar dhuumanaya iyo maxbuus dhuumanaya mooyaane ereyadan cidima gasho marka allakajeed saasay ugu bixiyeen waa bilaa shanqadh waayo markaad indhaha dadka ka ararkayso ma xidhnid laakiin marka gidaarunku soo eegayo dhibaatay leedahay dabeetana qolkana lay geeyey booskaygu aniga booskaygu wuxuu ahaa kaa halkan silsiladaa ku yaala waa silsilad cumarow silsiladii madiis waxaan jecelahay haatan waxaan dhex taagannahay jeelka magaalada Hargeysa waxaan kasii taagannahay qol ka mid a qolalka lagu xidho dadka sulub waa qolkii uu ka baxay waa qol taariikhiya markii uu jeelka ka baxsaday waa qolkuu ku xidhnaa bal haddaba in yar haynooga warramo sidii uu ku xidhnaa iyo silsiladii iyo hawsha siduu u bilaabay siduu qolkan uga baxsado waad mahadsan tahay dhuxul qolkan intii aanan horta tayda gelin in yaran ka warramo qolkan imika muddo dadka laguma xidhin caariyaa ka muuqata madaafiicdii esrimna way ka muuqataa halkan daloosha madaafiicdii dhinaca esrim ka soo reysay baa kaga dhacay qolkani markaa sidan muu ahayno muu uskagaysnayn macnaha uu caddaayo gidaarkan mar dambaa lagu sameeyey ninka xasan jilic la ydhaa ayaa gidaaradan ku sameeyey qolkan isticmaalkiisu wuxuu bilaabmay markii hore meesha maadka la ydhaa ayaa loo dhigi jiray kaydka xarkaha iyo kabdahay sameeyaan qolkay naga sii jeedaana waa dawaarka jeelka wax loogu toli jiray waa qolka taariikhdiisii qolkan waxaa la isticmaalay markii ururkii SDF uu bilaabmay raggii ugu horreeyey laga soo qabtay meesha la yidhaahdo gorayacawl ayaa iyagoo dila halkan la keenay silsiladaha markaa iyagaa loo sameeyey birahan meesha ku aasan qofku isagoo hurda in lagu dhiso halkan way ku wareegsan yihin waa dhowr markaa qolkaysaa u wareegsan dadka waa la taxaya sida mareegta silsiladana saasay ahaan jirtay qolku markaa taariikhdiisu waa kaa nimankaa waxaa uga dambeeyey inamadii jeelka mandheere ka daatay ee diyaaradda loo aftuubay dhalinyartii ardaydii reerkiisa
halkan markaa nin walba intuu xididadiisa daloosho ayuu ila inuu dhibanayo ogyahay bal sida maxaabiista kale soo gasha ay taariikhdiisa iyo waxa lagu masbidayay iyo wuxuu yahay iyo wuxuu aaminsan yahay si ay u gartaan aqalkani wuxuu aqal taariikhi ah markaad soo gasho waxaad arkaysaa dhiig gidaarada ku qoran oo magacyadii dadka imika halkaa ku qabo waxaad arkaysaa xuruuf kasii muuqata maxamed baa ku qoran magacayga haddii la baadhayo sulub loo dhiiga lalaga heli karaa suuragala marka waxa weeyaan nimankaasi intay xididkooga dalooshaan ayay waxay ka dhigi jireen khad dabeetana maalintaasaa la xiday hebel oo basaasa arrintayda ku lug lahaa hebel baa soo qabtay si uu muujiyo wixii ka dambeeyey sida dadka hadhay ay wax u ogaadaan aqalku aqal saa taariikhna waa alla kajeedna way u bixiyeen dawladdii faqashtu oo alla kajeed mar haddaan alla kajeed kuu ridaya kuu shanqari bisadun baa ku hormari karta wax bini aadam oo kale ku hormari kara iyo wax ma jiro markaa dabeete annagu waxaan u bixinay alla ujeed anigoo idinka soo sheekeeyey qolka layga soo saaray qabka lagu hayay kuwa dilka halkaasa lagu haya halkan waa inqaab siyaad ah oo adoo hurdaad silsiladaysan tahay marka silsilada qaabkana loogu xiri jiray aniga booskaygu kanu ahaa halkaan fadhiyo booskaygu ahaa booskaa cishadaan fadhiyay maanta way kala duwan tahay maalintaa waxaan sugayey dil maanta se taarikh baan ka horeeya waa wax ilaahay uun suuro gelin kareen bini aadamku ka shaqayn karin marka waxa weeyaan halkaa markaan fadhiyey carruurtii aan dhalay magacyadoodii waan ilaaway marxaladaan ku jira haddaan ka sheekeeyo macnaha nin aanu saaxiibnahay baa inuu baxay uu filanayey dabeetana waxaan damcayna warqad dardaarana qoro carruurtii aan magaca ula baxay waan garan kari waayay inaan magacoodii qoro oo markaa dee waxaa dhacaysa waa nin aakhiraad noqonaysa nin adduunyadood ka tegaysa qofka bini aadamka halkaa cajaladina combyutera ugu jirta wuxuu qaban doono mustaqbalkiisa uu ka fikirayaa marka naftuna waa aad bay mudafirad u tahay sidii aynu dee diintaba ku hayno oo waa tii ilaahay ku lahayd adiguna adigaa tahay aniguna baan nahay marka taasi way nagu wada jirtaa waxay qirataa naftu ma qirata xumaanteeda iyo ceebteeda waxayse dabaceeda ayay qirataa markan dil baa tahay lagu idhaha isbedel baa kugu dhacaya cajaladii damaca waa lagaa saaraya tii xaqiiqadaa lagu gelinaya marka halkan markaan joogay xasuustayda waxay ahayd wixii aan intaan adduunyada joogay ilaa inaan aakhira joogaan marka aan u xisaabanahay inaan wixii aan qalad sameeyo o dhan ay hor yimaado haddaan inan yar maalin dakray haddaan mid nacnac ka boobay haddaan baaskiil mid jiirsiiyey haddaan dhagax mid ku dhuftay haddii aan makhaayad intaan shaah kala baxsaday islaami jimbajaada ka amaado on qariyey wixii danuub aan galay ayaa sida sawirka sida nimanka horumarkaaga ku yaallo sanadka dambe waa doofi sanadka dambe daarbaad sanadka dambe waa shaqo tegi ama iskuulkaa dambe jaamacadda saa uga baxa waxaa imika koor yaala wax kalaa ka hor imanaya markaa waa xaqiiqadiya oo maxaa kaa horreeyey sida saaxiibkay oo dhankan iga xigay oo yuusuf maxamed guuleel allah raxmi la dilay oo ku dhintay qaaxoo dharkaan ka wada baxnay ahaa wuxuu ku fikiri jiray 8 jir buu ahaa maalintaa wuxuu ka jaraa 15 da'diisa intaan u qaan gaadhina inta 23 sano usoo hadha 23 sano salaadeedii ayuu ka fikiraa markaa wuxuu war waynu dhibanay sulmo wax kala ku absaaminay salaadii inaga tagtay aan qalayno marka nimbo waxba ku mashquulaya waxa kale mucjisahay 8 nin oo dil haddaan ku jiro meesha raashinkan la dhex dhigo waanu cunaynaa nin walbana uu sheekeynaya ninka kale ma maqlayo nin walba isagaa sheeke iska wata qaar baad wataynta cuntada qaataan dhexda ka sii daynaya haddana calashanayo inuu afkii gaadhsiiyeen u haysta waayo xaaladaan ku jira xaaladaan ka sheekay kara ma anu gudubno iyo kiiskeenu sidaasaa naloo xidhi jiray silsilada inta saana lagu idhaa ayuu katiinad markab jarmalkaa berigii diyaaradii laaftuubay inaga siiyey markab wuxuu ina siiyey katiinada ah oo aluminiana marka kuwaasaa meel walo soomaaliyaaba jeelasheeda buuxay iyo stationada kaasaa quful ahaa kaasaa marka halkaana laga xiri jiray katiinada ah halkaasaa lagu xiri jiray dabeetana kolku odaygu sidaa inayna qufulantahay ogaado ayuu naga tegay dabeeta silsilada waa taa ku dhex jirta halkaan ku kala dinaana halkaas kaayo dibadda u durduri jirtay example sidaa dabeetan waad jiidanaysaa markaad kaajaso
ككلا اللي الواحد يسكو صور دوي لما دي الواد بكاكل يسكو دوي نيا واتشيد رسا halkaas aad u kaadi tagaysaa halkaa dabeetana markaad kaleedido waa soo oodi kalaawna warkaadaysa lugtii soo celi waa lugta soo celi markaad lugtii baad celinaysaa kii kale haddana lugtii jiidanaya waayahay halkaan qodobna sida naloo xidhay saase dabeeto qaabka aan ku helay inaan qodob halkana aan ka baxo fikirkaa waxa keenay maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan afarta galabnimo naloo kaadi geyn jiray suuli halkana oon ku tusi doono dabeetana markaanu gelanay ayaan dhagaxeedu kaadi iska biyo qaadaysiri qori yaroo intaa adu ka yar dheer ayaan kaa qaatay bir dabeetana birta waxaan doonayay markaa anigu damacaygu ah sida qur-aanka loo xafido kale ayaan gabayada iyo halganka imanka midna kama garanaye ayaan xafidsanahay markaa waxaan ku eleladayaa ha iska dhimo sidii neef horta dhiig ku farxalo dhagartana isweeshada dhimashadu xabaashiyo kafan laba dhudoodiyo iil dhexdiisa maahee sharaftoo dantaashiyo dheg xumaanta weeyaan macnaha adoo bulshadaad ku dhex nooshahay ku dhex eebooba ama ku dhex dhintaadoo nool ayaa xumo sharaftaadu dhantaadanto laakiin dhimashadan iilka waa loo dhintaa de waa loo dhashayba markaa waa hal mar 2 jeer iyo 3 jeerna maaha markaa taanoo ku elabaya ayaan birtan yar soo helay dabeetana waxaan leeyahay aniyo miyaad iska tegi adoon dhiigba ku faraxalan ilan waa lagu soo qabto nimake miyaad iska tegaysaa maya dee qofa ku raaco markaa birtaan haysto inaan cid ku dilo oon askarta ku sahayda gaarka iga haysa kuwa aan weliba markaa u aanaynayo inay dawladda ka tirsan yihiin ya oo qaar badan oo dee ilaalinayo ila mid oo dilaysku iska xidhan baa jiray kuwaan isleeyahay dawladday ka tirsan yihiin ayaa markaa isleeyahay qaar dee dhulka aakhira u sii dir markaa haddaba birtan yaray dee haddaan askariga ku dhufaysaa xawlamariidkaygaan ku eegaa markaa birtan yaray dherarkeedu waxay leeg tahay intaa way ka yar gaaban tahay markaa haddaan sidaa idhaa on biyo buuflaha hadday dheerto sidaa tahay dee biyo buuflahay gaari kartaa dhowr jeed ba ninka gaadhsiina u dhiman karaya laakiin in yaroo intani dee waxay maxba meel ma tegayso waa jirka oo cadhada askartunbaad isku sii badayso dee adunbaa colaad kororsaday askarigiina waxba maad yeelin dabeetana birtii naburadiina lagu garaacay iyo dhiiggii iyo wixii baa isku bogsaday dabeetana garfeer baabay ii noqotay maalin maalmaha ka mid a ayaa nin jeelka ka tirsanaa isbatooro oo xasan dheera loo jeclaya raxmed u dhintaa laygu yidhi oo islaantiisu jaadiibisa halka soo joogsaday dabeetana wuxuu waar suluf iska waran dabeetana meesha albaabkan meel yar baa dalooshay halkaasii nagala hadli jiray waa nabad baan birtii yareedna sidaasaan u haystaa dabeetana sidaasaan lugtiina waan ka xidhanahay sidaasaan dabeetay dabeetana labadan leyn dhexdooday ku dhagaagtay sidaasaan lugtiina saasaan uga xidhanahay dabeetana ninkii wuxuu ii warramay in gabadhaydii dhakhtarka la keenay oo ay fool dhicis nooc dhicis oo kale qolkii dhicisada la dhigay in dhiig loo shubana ay u baahnayd dabeetana qaar dhiig u shubi lahaa securitigii soo dhex galay oo laleeyahy ma ninka qurmiskaa ayaa dhiig u shubaysaanay kala yaaceen markaa gabadhaada halkii dhicisiyay taalle wixii dhiigga u shubayna waa la kala eriyey walaa xaaladeeduna serious bay ahayd biyoo dhakhtarkan tegey jaad miyaan kuu keenaa dabeetana anigoo dee meel hooste ka hadlayaan ku yidhi haya keen dabeetana waan gabcay waxaan markaa ku eleladay anoo soo jeeda carruurtii ay gabadhu dhashay kan uurka kusoo jiray iska daa kuwii hore markaa waxaan idhi waa niyo adna waad dhimatay iyana waa tan dhimatay bal carruurtii yaa u ehelay qaaday markaa waxay markaa duruuftii keentay inaan xisaabiyo ehelkaygii labada dhinacba dhinacii xididka iyo dhinacay carruurtu waxay ahayd 4 behe markaa 4tii baan qaybiyey gabadheedu dhinacan xagga hargeysa buurleyda dhinacan dhacarburuq ayay ahayd ana dhinacan gabiliya xagganada markaa dhinacan dhaxan iyo lo iyo beer iyo waxbaa jira xaggana riyo iyo buur iyo waxbaa jira markaa carruurtii oo 2 ka mid ah loo diray
beerihii iyo loodii oo dhaxan iyo halkaa raacayaan aan waxbarashada ugu talagalay labadii kalena buuraha la raaciyey oo halkaa riyeeye qorof ay raacayaan ayaa ii muuqda dabeetana birtii baan sidaa leeyahay anugu birtii waxay gashay meeshii isma ogi markaa birtii markay meeshii gashay ayaan ku xaquuqay goobtii intana way dhiigtay dabeetana waan soo baxo kii igu xigay silsilada lufta ku xigan xidhnaa ayaa yidhi waad ciiddaa daadisay waa maxay ciid sibirkuna waa sibir nadiifa kan ciiddana maaha askarigu markuu soo arko ciidduu dareemi marka ciidda waanu ka ilaalinaa meesha dabeetana meeshii baan arkay war halkan waad ku qabatee waa kaloo way daloolisay miyaanad sidaa odhan karayn haye miyaanad sidaa wareejin karayn sidaa dheh haye dhagaxan maad halka soo dhiigi ilingaar kuma soo dhacaye ma waad dhigi kartaa kan ku xigana bilow waa intee ku leeg dee intaa ha waa intee ku leeg waaba kan meeshaan ka bilaabay wataa ha iftiinkaan ubane markaas saasaan u fadhiistay waxaan inan markuu ninkan intaas wallahi waad samayn kartaa waad samayn kartaa baan waad samayn kartaa baan markii aan fahmay een arrintii inay ii qodmase aan fahmay ayaan maxaad samaysaa halkan maxaabiis baa kugula jirta kula kiis maaha saaxiibkan baad isku kiis tihiin qaar askarta soo yar dakray oo cinqaab ahaan qabtan loo keenay baa jira oo iyagu maalmo tirsanaya oon febish badan inay galaan diyaar u ahayn xataa kan sarkaalkee burca laga soo xidhay dilka loo haystaa siyaad baa loogu maqan yahay wax rajagoysa aniga saaxiibkay ma jira marka kula qaadan maayaan khatarta halkan askartii kuu sheegaya maxaad yeeshaa waxaad yeeshaa nimankan dareeri markaa 9 baanu nahay qolka ku jira minimum baanu isku kiisnahay oo saaxiibadii qabtaan kaga yimid dabeetana waan waashay waan iswaalay askartii markay furaay furisanaashinkee ka tala badhaayo maca askartii waxay yidhahdeen waa ninkii sulbuu waashay oo ka dhigay dabeetana maxaabiista inaan waashaa laga qaatay waalidii waxaan gartay in layga qaatay ilan waalihan lagaa qaadan baa jirte askartii waxay isku kay wada sheegeen oo waalidii laga qaatay baan fahmay dabeetana markaan fahmay ayaa nimankan si aan u dareeriyo haddaan caawa ku bilaabo fiidka dee waa nin diloo naftaa iska kaay bacsa albaabka noo xidho habeenkii jeelka lama furo mar haddii loo kaabta la xidho sharciga jeelku furitaan ma leh dabeetana saajinku markuuna kala tirsanaya furuu soo shanqarayo ayaan mid ku dhega waa qodadeydii waa cashadeydii qaniyoon wacyo dabeetana anagoo deg deg baa loo furaayo waan waa maxayo kan ma ogole ka saaraa laydhaa alla laylay waad faahid waxyaanad ogole waa lagaa saari soo maaha haddaba mar ha wada diidine maalinba miduu diid maalin qura intii wada diida lagaa yeeli maaye maalinba miduu sanif ceshaha dambana miduu maasanif kana waa layga saaraa ninkii hawiye ee burca laga soo xidhay iyo saaxiibkay mobilka la hadhay dabeetana maalintan iyo intan aan waalida ku jiray iyo intii soo bogsigaan ku jiray muddo bil ku dhowdhoway qaatay intaan waalinaya intaan bogsanaydi dabeetana markii dambe waan iska bogsado kale la soo gelay hakumaanao kana ma ogole ka celiya qabta kala geeyu malayda dabeetana qolkii uu noo tiro yaraaday uu noo tiro yaraaday dabeeto muddadii bil ku dhow dhow intaan waashay intaan bogsaday soo maaha odaygii baa soo noqday xasan wax khayrsidii naxdin buu siday laakiin naxdintii faraj bay heshay naxdintii uu siday miftaaxulfaraj bay ii sheegtay oo dee waa tii musbaarka ii sheegtay maalintii dambena waxbuu ii sheegayaa leerkaa maalintii dambena waxbuu ii sheegayaa wuu soo joogsaday wuxuu suladow dhakhtarkii baan ka imid oo gabadhii oo umushay oo inan umusho caafimaad qabta ayaan arkay waa naxay markaasaan cishada hore u dhixin saasaan u booyay sida wax lagu gusto halkaasaa fadhiistay waayo waxay igu soo kordhisay dhib 4tii hore waan igi qaybiyey midba meelan ku qorayba kan shanaad meelan ku qoro leeyankii intii waan ka xulay oo waan yar qayqaybiyey carruurtii kaasaa malaa beriiska siin kaasaa ma yar xanaanayn dee waan iga carruurta qaybiyey yarkan rabshad ilmahan dambe rabshad bay dhinac iga soo kordhisay oo dee nin adduunye mahiyo
nin adduunye maya ubadkii kuma farxayaba nin adduunyaa ku farxa ubadka lana aakhiraan ahay marka waa maxay inana uu ii sheegay inantaa magaceedii qoray hoodaan u bixiyey haddana saasaan u qoray dabeetana 5 xaraf bay noqotay 5tii xaraf saasaa xarafka bartankaan daya haddana 4 xarafna saasaan u qoray dabeetana circle baan geliyey circle baan saa u geliyey waxaan idhi waan ku hoodaysanaya macnaha intaa magaceeda intaa uu gaadhay waa inay dabooshantaa dabeetu dadkiina waa kiiga baxay askartu waxay noo keentaa baco bacahan jaadka lagu cuno bacahaasoo hanu isticmaalno saxarada waayo saxarada hadda halka dhigto waa qarmuun laakiin bacdu suuli bay noqon karaysaa bacdaasaanu markaa isticmaalnaa oo askartu noo keentaa dersin waan soo kordhisto dhowr dersin ayaan mar kula dirtay dabeeta madiibad baan hoos dhigaa waa xaquuqaa saan mid ciidi dhulka u dhicin dhagaxaa koobaad wuxuu igu qaatay 3 habeen dhagaxa koobaad oo keliya xilliga aan waxaynaya waa xilligee jeelka waxa soo maray mar hore oo muddaan jeelka ku xidhnaayo shaqaalihii dawladda lagu xidhi jiray auditor ku xidhi jiray ayaan ka mid ahaa marka dabeecadda jeelkaan aqaanaa sida reer jeel u dhaqmaan aad baan u aqaanaa xilligay dayacan yihiin aqoon baan u leedahay marka waxaan ay dayacan yihiin oon gidaarkan qodaan ka shaqeeya xilli aanay haleelayn waa xilligee xitaa haddaan halka soo joogsado intaa guduhu arkayaayo halka waxaan ka qabanayo war uma hayo halkaa waxaan ka qabanayo war uma hayo marka 5 barka ilaa 7 waxla ayaan qodaa 5 barka ilaa 7 waxla 7 inta ka dambaysa ciidanka jeelku waa digtoon yahay 5 galabnimo markay loo kaabta kala tirsadaan ayaan ku bilaabaa marka intay goglaha iyo cashada iyo waxaan ku yiraahdaa hawleeyay ayaan ana ka shaqaystaa meesha dabeetana dhagaxaan soo saaro halkan aan dhigaa wixii halkaan ku jiraan soo guraa bacaan ku ridaa bacna waa soohaa labada sil dhexdooda ilaa macaws baan xidhanay ayaan ku xidhaa 3 maxbuus ba midooba bac baan halkaa dabada u geliyaa midna waan ku xidhnaa dabeetana uu naga furaa kaalay soo kaadsha 4 barka marka la tirsanayo xalay aanu bacdi meeshii ku sii xiray ayuu na kaxeeyaa suuliga halkaas oo geyn doono ayaan ku fadhiistaa dabadaada iyo suuliga askariga uma dhaxeeyo dibaddu jooga waxaan meesha ku riday askariga wax la wuxuu koogaya ma jirto cid kaas oo daba jeegaraysa suuliga waxaad ku riday eegi ka taalo ma jirto dhagaxina meesha ku celiyo dhagax waan ku celiyaa mar xitaa haddaad soo gasho tadxeelkaa dhacay mooyaane dee meesha waxba kama maqnaa dhagaxi waan ku celiyaa xitaa kabriid baan u samaystay miisaana si inuu gidaarku uur soo leeyahay in kale aan u hubiyo oo gidaarka ku xaqiijinayo toosnaantiisa dhagaxaanta dibadda gidaarku baaxadiisu waa 2 dhagax oo kala jeeda xaggana dhagax qoraa ka sii jeeda waa kan dhagax qoraa ka sii jeeda halkaas waa calaamadii aad ka waa halkii aan ka soo bixay marka waxa weeyaan tadxeelkaa yar oo gudaha ka xoqay iyo dhagaxana iyo dibadda u soo jeedo dibadda ma soo daloolinayo gudaha un baan qodaya laakiin tadxeelkaa yar intaa ay malqacaddu martay waxaan ahayn oo meesha ku jira xaggii shaan ka qoday dhagaxuna xaggaa hore kama sinna xaggu gidaarka jira ka faranqaalu leeyahay dabeetana dhagaxa waxaa la ridayaa cishada aan baxayo habeenkii aan baxayay nin la yidhaha maxamed halkan soo xigta meesha oo luka xidhan oo dee silsiladana ku xidhan tahay dhagaxaantii aan soo qaadaya dhagixii ugu weynaayo kaa bartankaaya ayaa lugtiisii oo halkan soo jiifta aan soo qaaday markaan degdegayay dabeeto maxamed horta waxaan dhameeyey qoditaankii 21 cishaan qoday habeenkii 22aad ba maxamed naloo keenay leemigoo caafimaad qabaayo dadka waa la soo gelin karaa maxamed markaa meeshu way noo xidhan tahay nin milishiibiyada gabile ka tirsanaan jiray waxaana naloogu keenay inuu wax naga yar ogaado dabeeta waxaan ninka idhi waxaan ninka ku niri wareesarin baa meesha imanaysa jeelkay nagala baxaysaa soo na raaci maysid
wuxuu noo meeyda cadayga sheegeeno qoladii lagu xukumaan oo ma aamini karayo waxaan anaga ka muslixii naraa wuxuu halkan islaamay man karim mayso waayo soo tima dheera ba timi ma dheera soo teesram timi ma dheera waa jeel cidla ku yaala laakiin jeelkan caasimad buu ku dhex yaala ciidamada ku wareegsan dadkii baa jooga suuragal maaha in halkan islaam timaado markaa si xun baad u fikiraysaan buu nagu yidhi war maaha adaa waalan waa tii birjeexdan aad arkase militariga aad sheegaysa bartankiisa waa tii cabdillahi askar habeen cad lagala booday halkana waxaa jooga askaran hubba haysane meeshii anta airgraf ku yaalay ayaa cabdillahi lagala dhex booday ma dheerna waa loo dhacay xaggeed ka baqasaa waa iman karayaane aduna raac may haddaba waaya waxaanu kaa dhiganaa oday inna loo dhegale aad dhow adeer hays waalwaale gidaarkan qodan 5 jis baanu akrinaa oonu qaybsanaa qur-aanka ilaahay askarta indhooda caag ka dhigo dee meesha ilaahay tusinta markaa wuxuu yidhaha qur-aankan akrida waxay markaasaanu dee waxaanu adee qur-aanka waxaanu akrinaa islaan la socotay gabadhay walaalahay sheekh isxaaq ayaa jirto looma ducay sheekh isxaaq waa loo duceeyey isaga gabadh la socotay walaashii ahaydoo dee maartay ayaan cidba u ducay markaa anagu taasaan alla barnaayo caabudlaa la yidhaayo marka gabadhaasaanu anagu qur-aanka u akrina ee nala akri liwaayadadaaya dabeetana qur-aankaasu nala akrina markaas halkana moo ilaahayo indhaha caag xagga askariga u jeedi ya ayaanu nacnaa dee xitaa hadduu halkan yimaado tadxeel baa dhacay mooyaane wax uu dareemi karaya ma jirto dabeetana 22 baa ninka naloo keenay lugta halkan uu ku xidhan yahay operatinkuu qoday oo iska daboolan yahay markaa habeenkii la baxayay ayaanu ka fikirana anee saaxiibkay waxaana war habeen la dhinto habeenkee u fiican yuusuf maxamed guuleed wuxuu leeyahay aniga jimco ramadaan baa malaq aada u ajri badan war meel bal haddaan wax kala raadin waxaanu ogaanay ayaanta isniinta oo yoomul nebiga inay tahay ayaan dee cajaayib oo la qariyey ayaantaani uma dhimana ayaantiina bishii baanu xisaabinay ramadaan 27 bay noqotay laba khayr ba isku hagaagay waa laytul khadragi iyo ayaantii nebiga iyo ayaantaan dhimano marxabiye guddoon anaga markaa dilkaygu uu soo dhow yahay marka nala dilaya xukunkii uu nagu dhacay uu soo dhow yahay markaa waxaa dhacday markay tahay 27 habeenka ay gashay ayaan anigu xoogaa lacaga suuqa layga keenay nin la yidhaha EO ka ahaa dawladda hoose Hargeysa Cismaan Dhagax baa la yidhaahdaa iminkana wuxuu EO ka yahay burco iminkada Somaliland ninkaas ayaan u dirtay fariin waxaan ku yidhi lacag soo dir nin ciidamada ka mid ahaa asluubta oo cali roonkax la yidhaha oo dhintay ayaan u diray cali roonkax warqad baan u dhiibay dabeetana cali uu qaaday ninkii buu tegey war lacag dameer goysa lacag dameer goysa soo dir cali roonka cismaano markaa dabeetana cismaan lacagtii buu soo diray lacagtii ayuu soo diray hudhe yaroo halkan ku yaroo loo jeeda caawiye uu lahaan jiro halka kasoo jeeda ayuu lacagtii dhigay dabeetana wuxuu lacag fara badan buu soo dhiibay cismaan halkanaan dhigay dee waxaad uga baahan tahay dabeetana waxaanu maranaa habeenkii ramadaani 26 askartii baanu yeedhay habeenkaanka waa dharkii waa ina qoole adeerkaale imisaad caruur leedahay ciidii baa soo dhow soo maaha lacag mushaarkooda ka badan ayaan ciidankii u qaybiyey waaradno carruurtii dharu sii farxad baa jirta siyaad barray u tegeen odayaashii qabkii odayaashii sacad muusuhu waayo nimankan kiiska ku xidhan baa labadaa reer ahaa markaa siyaad barray dilkii buu naga daayo xabsi daayin buu noo bedelay dee maalin unbuu dhiman waanu iska bixi insha allah farxad maanta wax nooga harsan ma jiro waynu ciidanahay nala ciidoo carruurta ciidka u iibiyo hooyo lacagta waanu qaybinay markaa dharkii iyo waxaanu siisiinay intii soo hadhay waxaan soo siiyey shaadadalii sheekha soo iibi bale sonkor iyo buuri iyo sigaar iyo sonkor bay lacagta baaqigii hadhay soo siiyey
askartii soo qaadaan soo geliya jeer way soo geliyeen waxaan ku yidhi doostaan idinka ducaystaan maxaabiistan uga ducaysanayahay niwaniga idinka ducaystay idinkee fadlan markay geenayeen suuliga aqaladani soo maray aqaladaan soo aragnay ayaana aqal walba waa ka daaqadiisu garaa leeya waynu ku noqon doonaa halkaasaan istaagaa daaqadda markaasaan ku idhaahdaa waaryaara waanu teganaa xooba qarnay waanu teganaa ducaanu idinka baxannahay salaada makrib ila tii casar waa soo dhaafnay iyo ta cishaay iyo ta subax saddexaad salaadood midkoob iyo 10 qulwale nagu soo caawiya dabeetana nimanku waxay moodaan inuu imika nala dilayo nala kaxaynayo way dhaxaano salaad makribba ma sugina qur-aankii bay wada bilaabeen 700 maxbuusood kaga yuu siisay maan miduu lagu jirin waxbaa la caqbali maca askartii waa ta ducaynaysa dee meesha xeradii waa wada duco maca dhinaca dumarka waanu diray kharashkooda waan gaarsiiyey markaa dadkii qulubtii halkan joogtay dayrkii askari iyo nin walba halla ilaahay nimanka wadaba waa amba baxaan bay hoosta ka noqonaysaa ha amba baxaan bay noqonaysaa maca askarigii baa duceeyey ducadaasi markay dhacday ee habeenkii cawaysinkii gaadhay saambuusiyi afurkii naloo keenay kiniin baan ururin jiray oo waxaan saaxiibka waanu fikirana maskaxda xoog bay u shaqaysaa maskaxdu markay dhibaataysan tahay ayay fikirtaa oo wax soo saartaa markaa minid kasta wax baa nagu soo degaya waxaan waan heedhe askartu way naga xoog waaweyntay ninka kalena anuu bila quuda 3 biloodna waa layna garaacay itaal ma lihin qoryahoodana waan doonanaa sidee de askariga maxay naga caawiyeen sumayna aan sumayno tay masuul baa laynoo keeni waynu heli inagu maya dee askarigu wuxuu keenayo waxaan ku darno wuxuu keeni karee caqligiisu qaadayo unaanu dirno ilaa haddaan sun keenidhaano askarigu ma aqbalaye haye maxaynu keenidhaana askarigu wuxuu ugu jecel yahay maxbuuska ka seexda habeenka markuu gaarka yahay aqalkoodu wada quuriyo askarigu waa habi way maxaabiistoo ka seexato cid u fikiraysa ma jirto haddii kale kolba daaqadu keegaya waa nin kuwaas maxay ka fikiraya talo waa kuwa sheekaynaya una seex war seexda warya ayuu halkaa kaa odhanaya markaa dabeeto seexad buu jecel yahay halkaan dhex galo haye maxaan ka dhex galaa kiniinkii hurdada waa nin waanu gami weyno jaadkeena waa nagu go-aye kiniinkii hurdada ina jaadkoo mamnuucaga waa kanii keenaye kiniinkii hurdaday keen cishaba in baa nuu dirnaa ila haddaad mar qurataa 500 keen wuu shakeeyey 20 midnoo keen oon yarasa kala gaarkii kale smoog 20 keen inta waynaga waanu mucunne 20 keen oon ururiya 385 xabo oo dhiyaasa bamaan ururiyey 385 kii xabo 3 xabo waayo berigaa waa la iska eedayn jiray dadka waxaan ciidanka ilaalinaya iyo annagan xidhanna isku wada qabiil umarno isagoo waxba gacan ku siin baa la odhanaya gacan buu siiyey caynkan dee rag baa ku xiniyaba horagga habeenkii dee haddaanu ka baxsanay iyagana looma naxariisan dee markaas si aan kiiska haddii caqli baadho dawladi baadho si aan qofkan dembi loo raacin ayaanu ka taxadiray 30 mid baa kininkii ka saaro qolkan ku dhex daadiyey si hadhow marka loo baadho loo ogaado operation meesha ka dhacay oon askartan daa loo raacay intii kale koob ku shubay biyaan ku daray liquid baan ka dhigay waxaan u bedelay da wax dareera waan qooyi dabeetna koob halkan fadhiyo weeyaan oo 350 xabo qooshiin 30kiina waan daadiyey maxaad u malayn dosage teleg bisita 3 mid baa dee lagu wareeraa 4 waa lagu sakhaamamali waxa ka darana kan si daran wixii oo garoorsan uma faraasaa u geliyo baastada mali dabeetna saaxiibadeeda nala xiran odayii saaxiibadeeda nala xiran fiidkii waxay ku afureen saambuusiyo basbaaseeyey dhiyaasa bamtii mariyey iyo timirtii oonu dhex gelgeliyeyba dabeetaba fiidba cashaba may sugine carabkii baa ka soo dhacay markay afureenba oo carabkii masafuu noqday iyagoo halkaasi ku suuxeen odaygana waxaanu ka oran jiray isna markay timaadeenu meesha ka dhacano adeer nin dhegalaanu kaa dhigi doono indhale hadhow hayso waalwaale waayahe iga dhigay buu noolan jiray caqligana taasaa kaga jirta inay isrinimo doonto hadday timaadwaanu aaminsiin okay markaa dabeeto inan baanu kaashananaa ciidanka ka mid a inankii waxaanu ku nii warniyo isran baa iman doonta waxna waanu siisiin jiray maalin dhoway imanaysaa habeenkaa dee jeelkan bay joogna qolkan ma yaqaanaan alaka jeedka mujaahidiintii baxday markaa niyo qolkan albaabkan
نقولين الناي سأنا سكرت نو مقلد أنا قاعد عصبان صارنا وحي قاعد كسر دقول قط يدنا يكوش التان تبدأ مو ما يعرف حدا كان عايز الباب كاسم دبعين الناي شنقده سأنا مقلد كنين بان كنين السنة أنت ذا كنين كلاس كنت قارسي يا سي كاتب تاسي كا تبريز متابسته وجي كاشا سي متبع وحسي ونانا شغالين مركو عسكرتي ولا قارسي ويسيري والله يا رورت هذيك كيس كلا بارو وتكلي لا ونكبل كنين تاي أدو كيس كوكو قبل سورة وسكعنا سورة كنينكي أنو ديب النبي وسكعنا عسكرتي نقول شغلنا يرين شوفتي لوكتي ولا تاكتي markay awal markaanu hebelownina shanba soo kici jiray markay ahayd 12kii hebelownino wax dhaqaaqeeno hebelow gaw arwo gaarbaalkii maca saaxiibkeen weyn oo ka baxay orbidka maca saaxiibkiino adeegi ya orbidka ka baxay waa meesha waa cadlan tahay maxaynu sameynaa haddaba hawsheena sameyno show ilaahay wuxuu leeyahay laba nin oo gaagaaban baa tiin gidaar dheer baa idinka horeeya ka dhici kari maysaan dheer baad u baahantiin waana gaagaabantiin wixii idin taakuleen la sii sameeyay buu ilaahay leeyahay annana waxaanu leeyahay fikirkiisu u imanayay annana waxaanu leeyahay war askartu hadday noo kacdaa ma koon maxaabistiba maxaan ku qabananiyo war xariga ku baktiino aan samayno dabeetana kuwan muddo kiin ka dhirgan horta mariye ka furay annaga intii nagu siyaadada ahaydna waanu jeexjeexnay harkaanu ka soconay xarig 3 laagood oo 3 mitir ayaanu tidacay oo dhexdana aanu sugur uga samaynay markaa biyaan gelinay luqunteeda waan ku eegnay uu ku ordayaa waa geli hadda jiid waa dhag uu ordayaa sax kiibaan duubo luquntaan geliyay waa su'aade aniga hadday igu soo horeeyaan aniga maxaan gelin waa mid kala samaynay kan ka fur dharkaysta waanu ka furnay waanu samaynay laba xarig oo dheer oo adag ayaanu samaynay midba mid buu duubtuu luqunta gashaday dharka iyagina macawsiintaan daba laabanay yaa nigiskeena darweelkaa ku kasii dul gashano intaa salka ayuu ku urtay macawistiyo si aan naloo qabsanay ama gaftigu meelaha qaban waanu saadkeeno meelaha waan duubanay dhulkan oo dhan waan soo duubnay dabeetana 12 la bay gaadhay operation baa dhacay markaa 12 la ayay gaadhay saaxiibkay waxaan idhi horta i gunaanad saaxiibkay waxaan idhi gunaanad ismaha leelana daadho aan dhimanay dagaal baan gelinay ha markaa i gunaanad وي قناردو ياسين كوي كدمية أنا وان قناردو ياسين كان كدمية تبيتنا وانو سكعان قادلي نبت قليل معنا اسمها ليلة الأول علي نبت قليل ساعة مركان سكوك عن قادني وحنا يلا دبتشوك ساعدو حركة محابيستك كعة لو كنت قلي أنا وسويت شيء سنو وان تشيدي أنا مركان دك حانت وان كفوف إلا وحي هايسا عيد بان ولاقي راشين وان كدري كان رمضان السمية بريسكيو سريك الاسكول عقاه كل كان هالكن تدحيل كو بوحابا سيدا عادي كو بوحا إلا شورا هايسا وان صور نفتي كيو كو وينا أيان كلا بحو دقحانتي سي جيدي أيان دبالا كرفتي وان دولت شبتي مركا دقحيمان دويتن لسو جيستو هالكن ديك بان سلو ودقيمان هالكن جيفا أيان لما فرو وفريرادا يفرت كو عكتا يندق حين كرفت صبتنا دويا له تبيتنا وين من وين فروت منا هي اللي بيربع ويسكايت لا فرود ولا يجيبوا بودي مركوب بودي أيو صاحب كي جري حرق يصير بلن كوها هذا أنا بلن كي وان كبحي حالتنا وقبل شغل لكن ربي بقى نوح يلا دينيا حرق جيبان كسر حرق أيام كسر ولا يجيبوا كل وان لما كي أنتوا ضلوشان واك لما يشترون دستنبوه يعني ونحي طلعوا كيو دبدي لا جسوا قبل واحد نمك هذا مقصود رفتي محابيستي ولا سيدان سكتين ولا توقتي ما نرد ولا جو رعي ما بدنا راعي بس سيدي بريكي ما كنا هو سكت شيبسم وان شيبسم ولا وستون تبى ترى مستعد وان كوس أروى صار أنا فدو عليه فدو صاحب كان يقول يقصد دببود هل كامر كان تشوفنا أيام موتيني waanu qaatowna meel askarkeegna halkaa markaanu joogno ayaanu wada hadalnay waan ka soo baxay waanu wada hadalnay labadeedii idinku galabdeeni midna halkan uu joogsaday waxaan war heede waa talo askarima ma joogtee
ما يسكتنا ما يسكتنا dabeetana haa halkaasaanu go-aan ku gaadhay go-aankii ahaa inaan qoryaha boobno oonu jeelka rabishno oonu askar tallayno halkaasaanu go-aankii ku bedelno dabeet halkanaanu marnay halkaasaan markaa fuulay halkaasaan fuulay dee imika oday baan ahay 19 sana ka soo wareegay waa shay baan ahay dee waxaan guurta Soomaaliland markii ku dhawaay yaa oday shay baan ahay dee maanta nin fudfud baan ahay halkaasaan ku booday halkaasaan qabsaday dhakadan gaari inankii lug baan u soo daayay way bari taageeray lugtaydii buu soo qabsaday intaan gidaarka qabsaday labadayna halkaasaanu ka dhacday halkaa markaanu ka dhacnay waatan halkaa haa wataa musqushu waa halkii aan ka helay musbaax halkan waxaa la yidhaha allaa xaalog halkana qaybta tiim bayle maxaabiista wixii tiim bayle ee dhinaca la gelin jiray halkana allaa xaalog baa loodhan jiro waxaa markaa ku xidhan corneyl jirif ayaa ku xidhan oo isla kiiska yagan ha maxamed xasan cabdilaahi jirif ayaa kelidii gurigan ku xidhan maxamed oo gurigan kelidii ku xidhan hadda waa guriga intaa le soo soco daaqadan aynu kala hadli jiray rasuuligii waa la dumiyey badeed jirif halkaasaan kala hadli jiray jirif waxaan markaa u sheegi jiray waan arrintan lanoo haysta annagu waanu qabnaa jirifow sacad muuse qabe sidaad yeeli jirif markaa u yar nixi jiro wuxuu jawaad waalantee naga tago dagaamus yaa jirif halkanuu ku jiray dabeetana suuligu halkana labada ayaa dee markaa aan geli jiray waa la baabiiyey halkana senteri baa saaran suuligu halkan waa kan ayaa kula dumin meesha waa kan iyo kula dumina saa mee waa adagtay war waa bulaacay waxba maahe iska soo bixi haddaad ila dhacdane meel ka daran baa ka soo baxay halkanaa suuli ahayd way dhismayd kiishkaygii bacdi oo dabadaan ku haystaan halkan fadhiisan jiray dabeetana imika halka haddii la baadho dee dhagaxii aqalka o dhan berigii kiiska la baadhayay waxba nimankii wax baadhistooda way xumaatay halkanaa dhagaxii o dhan ku jira wixii aan ka soo guray meesha suuligu markaa kaasuu ahaa suqduudkan ها markii aanu dhacnay markii aanu halkii ka dhacnay aan kuush markii aanu halkii ka dhacnay odaygii baa qayliyey odaygii aan dhagax ku dhuftay sarkaalkii heegan ku xafiisyadan fadhiya xafiiska fadhiya ayaa qayladii maqlay waxaa la yahay inda casa waxaa la yahay ismaaciil nabuur wuu nool yahay wuxuu joogaa waa la xiniyaha laga dilay ilkaha laga daadiyey macnaha waa la cadaabay kiiskayga awgeed wuxuu iminka joogaa halkan maxaan ku idhahdaa dhalinta kacaan ku shaqeeya xidig lu ahaa baan manaya laba xidigla wuxuu ahaa heegan ku haystay dabeeta shaqadii markuu maqlay halkanuu soo carray halkaasuu orday dhagaxaantii oo halkii gulucdaynu ogeyn taalla ilaan waa galabtiibuu tirsado meeshu nadiif bay hayde habeenka haddaad suuligaaga ku ogeyd wadda furan oo dhadhaara laguu sii dhigo dee waad ku dhici wey waad ku kufi halkiiba ku kufay markuu kufayna wuxuu arkay aqalkii dooc ka daloola alla tolaayay buu u ooyey odaygii wuu u warramay wuxuu yidhi nimankii way baxeen maxaabiistoo dhanna waa la sii daayey waa warkaan u sheegay wuxuu ku daray uun anigana halkan ay igu dhufteen oo wax ku dhuftay faraha ma ogadi ilaan dhagax anaa ku dhuftay isagu ma ogin marka wuxuu anigana halkan ay igu dhufteen askartiina waa la gowrgowracay meesha ciidima joogto dabeetee ilaan indhabuur ma beensan karo waayo wuxuu arkayaa nimankii ugu shishlaa uu ilaalinayay waxaa maxaabiistaa kale masaakiin kuwii dee dawladdu ilaashanaysa annaga hay raggii shishlaaba hadduu meesha ka tegey dee alla tolaayo hebelaba joogo hebele dabeetana laba baastood buu iska soo gooyey oo kor buuri nin ciidamada jeelka ahaa oo ina bada la odhan jiro malaha markaa kaga yimid qolka
يقولي دبك دبده كل شيء نسي أيوم موصلنا هبلا ورد قال ما يشيلك عيد ما تشوك تاي تبي ترى عيدا كي كونات شوي يكي كونات شوي حبض دي بوسكو صفري حبض دي كفر بين نقطي أنا أقول مركز كان نقص قلنا إنك ده مو يعني علك الدبد هل كانوا دبك شيء نسي تبي ترى لما أذكر بقى وريق تشري توش شيلك سيشيلك أجار كيسا وده نوع حدان تتابعك شيلك السكورة تيجي بقول كيبا بقول بوها هل كان كده عيبين تجنا أود وض أمساد هل كان سانك صداع هل كان مركان كصداع عني أيام صوي عني استعني صاحب كي مركان هل كان صومرني هل كان وشد بعيده وحنقول دسنا تبي ترى هل كان سان صوي عني وأنا متبتلنا عسكري هل كان سريع وسعرية هل كان مركان مرنه هل كان سان صومرني هل كان وحكم مقتم لا كبرت دقاري ميسي وكذا كان ينور حي وتصلوا ان سنتري وهل كان سعرية هل كان سان صومر كذا كان وكذا احنا ندورنا xilligana nu joognaa waxa weeye bisha abriil dabayaaqadeeda waa xilliga roobku curtaan shanqadhuna aad u isbaxdo dabeetana shanqadhayadii buu maqlay soo buto sidaan soo boodnay ayuu shanqadhayda askarigu dareemay askarigu markuu dareemay uu yar kacay xabad sigaaru shitay meeshaa yara dhisan buu ku dhex meeraystay dabeetana wuxuu xaawilay wuxuu isweydiiyey ma bisad baa dee gidaarkana ma soo raaci karo وما دوت أنا أقول لسنا ما بالصدبة ما محيو هذا الشنقدي وير دقيس أنا قوانو الشنقد كرناه هل كان نبرك نساو توشيف سأنا ساسو لكتان وحسبو شيءنا أنا قو بريش كي وحاين العسكر تود عنو قريها كقادنو وحلينو هذا لو أتمر كان هلك تهجني نفتو نقول دلتي إن نفتي صون ولا كرتو أنا بحسن كرو حردي قريها الهاي يهوب كانوا كل لاين إيجار كتشوجي وأنا كنمي حردنا هو بلا هب الله يقبل يوحبه يلا كواسنا وحبنا ما تريان مركا وانو ورورني أنا قو يابن مركو إسماعيل إن دبور باس دولة دريدي أو عيدا كيد البدوي ورشال كيس سلم باكو تشرتات دقال ما يعسكري نوم النورا حابس ما تشوفت أياني كي كعري وض واحد دمعنا إنه هالكفو الله وسوري هاي أنو جدار كريت متاكي كاسلا كوحين وانو كبقنا أو عسكري قاسا إذا أركبانو نري تبي ترى هالكاسر تكمل صاحب كي وساو تشيف ساو تشوسير هالك واحد موداين قشين بدل لو قري دول قصير كعي إنه كه سيبر موسي بريجي تبي تسير أسوي هالكاسا أنتو يري أيانو هالكافولي تبي تو حضرنا هالكاي هالكاسن كيتشوكسر تبركين سكير كان ساسويا تبغى يدنا ساسو قبته تبي تبركوا صاحب كي سلاي waxaan jirsaday siligan inta in dhudhu barkiya ee gidaarkana meel qabsado ma qabsado ma laha dabeetana halkan way yar goday baan oo qashin waxa lagu guray dambas iyo waxba lagu guray soo dalacmay gidaarka sidii maaha dabeetana waxa dhacday saaxiibkay xarigii uu luqunta ku hayay kan luqunta ku hayay baan xasuustay dabeetana حركي من صدايري وحن شعلي إن برتا كو أكتوسنا برتا إن برتا كو توسنا من شعل تبتنا حركي من صدايري وحيي قال يستيلي كير إن برتا وين عين مركاد بتنا حركي من سوق بصري وحن كفكرون سوى برتا الإنجليز باكو حري أنت هو باكو دايي تحل بيا لكرتا سيلي كير كحتشين مالي برتا لطونه حرقي لبعض بان كلب حي لقطيسة لبعض حرقي نصيصة بيسمي برتاسان كويهي ويسوق لي تبتان لغي بان لابتي أنو وان كان بباحي صاحب كي واحد لوحي يجي باري قتي أنا وعن سنين انت هذا حدي كنت تباشا رصاص تلقني قصص عطا بابا قسند وبدلي المقلي قرشمتها إلى إيري دانو كشا قندي تبتو
jeelkina waa wada rasaas kii dibaduu ridaya kii guduu ridaya meesha maasha Allah dhacaysa annaga dan kama liin way guusheedo hadii halkaan lagu dilo waanu gaadhay qolkii iska xoreynay ee wixii kale way taa naloo sheegto dabeeto ay waan booday labada xarig baan horta u xidhay isaga labadii xarig ayaan tan birtii ka furay birtaa mid ugu xidhay midna laba siliig baan iskugu xidhay waanu soo laalaadiyey isagu si bilaa tacaba ayuu ku fuulay ilaa xariguu buu rursanayaa dabeetana markuu garabkaygaa soo gaadhay jaakeedan gashanaa baan iska saaray waxaan markaa siligaan iska saaray dabeetana waan dhacay deraargay soo dhan way ogaayeen dee waa laga daawanaya halkaa alaabtii sudhnayd wiiga dhan labadii xadhig iyo jaakeedkii iyo dee wiig dhan buu sudhnaa halkaasaan ka baxay halkaasaan ka soo booday saacadduna waxay ku beegan tahay labadii habeennimo waana rabadaan 27 rabadaan waa laytil khadrigii dhulku cirku wuu daboolan yahay oo roob baa hibtiqayay inkastuu cishadaa da'ayay halkaasaan ka soo booday ninkay toogayna dawaa ninkii halkan markaas saa u soo dhacay haddaan halkaa u carro laynkii jeelkaa iga horreeya ciidanka jeel u gelayay oo gurmadkoodii in iga hor yimaadaa suuragal ah waxaan markaa door biday dhinacan ayaa dhow oo sekada halkan dayr yar bay lahayd halkanaad ka laabtid halkan ka laabanaysa dabeeto markaan anugu soo dhacay waxaan maqlay shanqar kale shanqadha waxaan u qaatay inay saaxiibkay dhacday rasaastii uu xagga gudaha u dhacay waanu faatixeeyey ilaahay dahaw naxariistaan halkaasaan orday waxaynan awada ku eega milyan rasaas bay igu socotay markaa halkaasaan soo cararay waan orday اوكي laba askari داده انا هذا وض ادو laba askari baa halkan ka soo wareegaysay laba askari baa halkan ka wareegaysay iyaguna isii oo hubiya waxa xaggan ka socda jeelka la wareega labadii askari markay soo baxeen ana soo baxo way maxay markaa waxay moodeen ee salamtii wax ku reesay meesha ayay moodeen labada askari dib u yaacay gidaarkaas ka daarukunkeeda ayay ku dhaceen rukunka ayay isku qariyeen rukunka markay isku qariyeen anna sekadana la laabo halkana markaa la yeeray xagana markaa la yeeray waxa dhac labada askari way yeeriyeen kolka rasaastu igu dhacdo waan dhacaya kolkaan dhaca hadana waan kacaya askartu markaan dhaca waxay moodeen inaan xabad ula jiibsaday dabeetana gidaaradaasay ku gabanayaan dabeetana orod baan bilaabaya haddana halkana la yeeriya marka geedkaan fuuli doono kanay xasuusiyey halka askarigu markay soo eriyeen halkanaan ku kufay markaan ku kufay waxay moodeen in geedkan ugu gabanayo dabeetana orod baan haddana isqaaday وض halkan ayaanu isla soo gallay dabeetana halkan aan ka soo laabay halkan markaanu taagannahay askartu waxay soo ordaysaa qoryahay ku sidaysaa halkay dhamadu socdaan ayay qiyaastii gaadhigaa dabadiisoo kale soo ordayeen dabeetana gidaarkan markaasaa ula laabay waa kan geedkaa fuulay geedkii khayre maxamed ibraahim baa hoos tegan iminka maxamed geedka biyo ma ku shubtaa ya haa geedkan markaan soo gaadhay ayay wax igu yidhaahdeen nimankan kama dheerayna sidee isbadbaadi dabeetana geedkan ayaan dhankan ka maray salaamu calaykum waa khayre labada iska هارما فولي كرو سلوى وسيده كلمانو geedka halkan aan ka fuulay dabeeta soladaasaan tegey soladaa dhexe markaa dee 19 sanaan ka soo wareegay maalintii nin dhallinyaraan ahaa orod baan ku fuulay dee maanta orod kuma fuuli karayo shay baan hay miyaan fuula haa waaya markaa halkaa anigoo halkaa fuushan ayaa albaabkaa la furay kaa ku qabo albaabkaasaa la furay aniguna waxaan fuushanay solladaa
sekada halkaa koonaha u banaa sekada koonahana hanuunin baa ku taala hanuunintana faynuus yar baa ka shidan waxaan tii ninka halkaa furay hanuunintaasuu toosinaya wuxuu ku sheegaya nin baa geedkan fuulay markaa dabeetana waxaan tii maxaad yeeshaa ilaa idaa kuma daynayo waa kaa ninkii soo furay albaabkii waxaan tii intaad booddo intaanu hanuuninta gaadhin dug ku dhaho dee afkuuna afka u geliyo islaba go'a yaa halkaas ku baktiya kaawun isla dhintay dabeetana geedkii ka degmaan odhan halkaas ladaa dhexaan fuushanaayo waan soo boodo meelahaasaan ku soo dhacay dabeetana ninkii hadduu i arkayeyna balaayaa samada kaga soo dhacday haddaanu i arkayna waaba ka sii naxdin weyntoo wuxuunu filayn ayaad meeshii soo shanqaray dabeetana deg deg baan kaco tooban kulo wigo isna uu kufay dabeetana wuu iga horbooday ninkii wuu iga horbooday xaafaad wuu iga horbooday dabeetana gurigiisiibuu galo uu soo xidhay dee anna waxaan rabshadba taaguma hayee halkaagaa nagaga jir ninow ma rabshad baylan taagumaan hayni dabeetana misigtana way kala baxday macawistiina way ii duubantay ma garanaysa dabeetana halkaasaan ka baxay nimankii daba ordayey markaan geed ka fuulay waddadanay mareen waddadanay yaaceen oo dee ninkii geed buu fuulay isma laha markay waddadan yaaceen anigu markaan geedkii ka degey haddaan xaggan u noqdo waa jeelkii haddaan xaggaan u noqdona waa dee jeelka agtiiba ku dhowdahay waddadanaa miina baaran dee oo askartii doondoonaysay martay maa askar kale halkaa kama soo baxayso askartii markaa laamidaasay qabsadeenoo xagga idaacadday u carareen waan maqlayaa kaboodii shanqadha ilan waa xilli dambe oo labadii bay taagantay markaa iyo rub markaa halkan geedka fuushanahay askartii jeelka igu haysay iyo 20kii silsiladood ee igu xidhnaa iyo dilkii aan ku xukunnaa halkaasaa iskugu kaayay dambaysay faqash iyo alaabteedii jeelka markaan fuushanaa waan qoslay waxaan ku qoslay in durba jeelkii ay noo dhexeeyeen jeelkii 5 silsiladood igu xidhnaayeen inay 3 sekood iyo siyaada noo dhexeeyaan halka haddaan ku dhintay inaan geeri xalaala dhintay anoo is xoreeyey aan dhintay ayay markaa muujinaysaa socodka markaa farax habi baan ahay halkaa hal go'aan baan ku gaadhay markaa waxaan ku gaadhay waxa ii hor yimid mahebel baa u tagtaa halkeed ku dhuumataa gurigeed gashaa berigaana raad baa ku dul maray baa dadka lagu marin jiray go'aan baan gaadhay fiican waxaan idhi cidna ha u tegin oo dadka badbaadi adigu ilaahay ku wataa markaa adiga ama gaar u dhimo oo dadka kelida aad ka baxdide cid ha sahayanin waayo nimankii meesha haystee dawladda loo haystayna halkaa go'aan wuxuu ahaa inaanan qofna u gelin dhibaatadeeda aniga igu koobnaato haddii ilaaha durba 2-3 sekood ku soo eriyey ee silsiladii kaa furay ee 9kii gaadh ku soo dhaafiyey waa ilaah kaaga jeeda inaad noolaato markaa noloshaa aamin markaa geedkii aan halkaa saarnaa go'aankaa markaan ku gaadhay go'aankii mid anfacay buu noqday aakhirkii waxaa markaa jirtay aqal yar baa halkaa ka dhisnaa oo dumay oo geerashka alaabtii loo dhigi jiray naftu waxay igu lahay intii aanu ninkani meesha iga soo saarin gidaarkas aqalka jiingadiisa ku dul daweyn geedka waa lagugu imaanaa roortii jiingadaa beerka saaro habeen daba marka gabolku dhacaad ka deg waxaan isiri waa niyo ku yaroo baas bay ku badi ka laalmiyo intuu daaraan fuulo dee odhanaya alla nin baa aqalkaa dul hurda ama gaadhi dhiga dheera ah ayaa meeshay soo taagay geerishbooygii dhakada ka saarnaa ayaa dee aqalkii la simanoo alla waa ninka halkan hurdaa waa maxay baa lagu odhan markaanoo geedka go'aanan kaga degaba aan laahay ayuu ninkaasi guri ka soo baxay kolkaa ninkaasi wuxuu noqday ninkii geedka iga soo dejay waana kii dee aqalkiisa ku noqday marka halkanaan ka baxay basku halkuu marayo halkaa aqalla xunuu baa isa saarsaarnaan jiray oo meel yaroo isku rarana laamaydaan ka tallaabay halka biyo dhacay dabadiisaan maray halkaasaan ka baxay beerta ina aamin ayaan bari ka maray geerashka awaadana imika la dhisay halkaasaan dhex maray dabeetana halkaasaan ka baxay inta kale mala waxay u fiican tahay inaan meel waxaan ku soo noqonnay jeelka magaalada Hargeysa albaabkiisa hore ee xagga laamiga u jeeda sulub waxaa sheekadiisa inoogu dambeysay
markii uu halkaa iyo beertayna aamin gaadhay halkaa markaa laga sii bilaabo halkeedu dhaqaaday ma bari ma galbeed sideed soo baxday waad mahadsan tahay weriye waxa weeyaan waa ilaahay mahadii haddaan maanta ka sheekayno halkan horena waan u mahadnaqay 100 jeerna waan mahadnaqayaa waana ku shukriyayaa maanta waxaanu haysanno iyo nabadgelyada iyo wanaagga iyo dawladda iyo wadajirka ummadda aad baan ugu faraxsanahay haddaynu halkaasi aanba qaadno geedkii baynu ka degnay waxaan ka baxnay beertii ina aamin berigeeda waxaan u tegey intii aanan beertii ina aamin ka bixin nin bilaakabaan ahay oo jeelka bilaakabaan ka soo dhacay markaa waxaan u baahday kabo dabeetana nin baan aaminay waddada 150ka gurigiisa ku yaallo dabeetana xuseen barre ayaa la yidhaha waa nin daaraha dhisa xuseen barre oona aad u saaxiib ahayd iminka waa joogaa waa nool yahay xuseen barre waxaan ku garaacay daaqadda hurdada ee gurigiisa dabeetana waa kuma buuhi magaciis baan sheegtay waayo gabadhaa maqli doonta magacayga wayna garan doontaa si aanay taasi u dhicin waa xuseen barre iga furbanay xuseen barre wuu iga furay daaqaddu iga furay wuu gartay gabadhiiba guriga dusha gabadhi waxay markaa leedahay beriga waa la baqaya faqashta waara bixin bay leedahay nookaadii buu waa waashmaankii guriga ilaalinayay guriga u dhisi jiray dabeetana wuxuu gabadhii guriga dusha ka handaraabay wuu ii soo baxay waxaan war waxaa magaalada Hargeysa xabad ka dhacay soo maaragtay halkaad igu ogeydna soo qabti maahay waa ka halkan ilaahay keenay waxaanu xabadina way igu dhacayaan halkaa aqalka igeli halkaa yar leerka laga galo silinka halkaan ku jiro caawa inta waagi baa dhowey aroo fiidka habeen dambana ka baxo ilana tali dabeetana wuxuu yiri warniyo aniga markii hore tilay weydiiyo raggii baadhitaada su'aal laga weydiiyay in kale si ay diidiyeen nabad sugid way soo doonaan marka halkan ku nabad gali meys nin baan ku raacin laba kaboodna wiisay 500 lacagna wiisay cumaamadna wiisay inana wii toosiyay dabeetana inankii u dardaaru halkaa maro halkaa geeyo markaad buuraha geedeebla ka dambeeyay geyso reerkii halkaa caynkaa gee buurtaa geli hebel u tag hebel u sheeg adugu SNMkii raadi iyagaa ka saari doona halkaa godkaa ku sii jiray isagu yarka caliyara la yidhaha uu ii kiciyey caliyare wuxuu ku dhintay dagaalkii halgankii habeenkii ay deerkii aanu soo gallay mujaahidiintii ku shahiiday ayuu ahaa qaybta inamada halkaa ku dhintay buu ahaa waa yarkii kiciyey marka waxaanu ka baxnay halkii aan kuu sheegay in aamin berigeeda dabeetana markaan kontaroolkii dhaafay ayaan xasuustay go'aankii aan geedka ku dul gaadhay cid soo digan dad la socda ee durbadad u tegey ee raadkii furay oo badbaad ku jirtaa dabeetana kii yaraabaan wariya orod iska noqon wuxuu yidhi ha noqon baa layidhi waad noqonaysaa baan idhoo haddaad noqon weydana kontaroolkan askartaaban isku dhiibi haddaad iga tegi weydo waan waxbaa isdhiibina waan kaa tegaya orod soco haddaba soco ninka aw cali la yidhaahna u tago waxaad tahadha ilaa aad ogaato dhimashadayda iyo noloshayda kitaabka ha isku laabina waxaad doonta ka akriyo dee alla bari gal anigaa khatarta ku jiray cid kalena hay sheegin oo ninka ahayd aw cali baa la yidhaha dabeetana u yimid ninkiiba u sheegay wuu iga soo noqday anugu halkii waxaan galay god ku yaalla buurta dhagaxa laga guray waraabasalaan dabadeeda ayaan god galay carmo badanna waan urursaday waxaan iskaga xidhay carmada madaxa godkana biyaha ku jira oo god waraabe dabeetana xagga dambaan la galay intaana waan la soo jeedaa dabeetana markaan shanqadh maqlo ayaan muquuranayaa oo markaan muquurto godkii waxa ka soo jeeda u geedo anigii gudahan ku jira oon muquurtay dabeeto maalintoo dhan halkaasaan ku jiray ku dhagax doonaya islaan lugeynaysa tucaana sida dee waa lay garab socdaa markaan dad shanqadha maqlo godkaan hoos u gelaya kolkaana sidii xoolii waa la xidhaysto gobolkii u dhacay ayaan meeshii ka baxay waqooyi baan usii dhaqaajay dabeetana maalintii nin see soconaya ma yihi niyadun baan hayaa waayo waxaa nala garaacayay 3 bilood iyo badh baa nala garaacayay xiniyahaygu waa baaldi kama yara jilbahaygana waxay laaleegayeen dee madaxayga nin dee intaasoo bilood la toorjangaraynayey ayaan ahay dabeeto waxaa dhacday
بربنا الجراعي حنيها هو بالدي كمان يلا شلبها يروح إلى الليجي لما ده حاجة أنت صوب بلاد التورشن جريني أيانا هاي تبيتو واحد عظيم ماشي جي نوها بيشينه يجي دبل الدحدود أيوه هبين كده من واقع يقبل بل لقيت الصعونية بك أيوه الهبين كم الصعونية وضلوا ما سكيل عليه تبي تنجد حسها شقها يسكت بعي مع عربه أيان سلك هو قلي بلا مسكون الدين كبقه أيان قلي تبي تنجد لي على حولا صوفه في ويدول طاقيان إنني يين بايقودوا الشيء السنة ويقودوها ساوية مركز تبي تنا مركز ريو سوي شوكسان مش فيدو بيف يورا سامر كام تبيتنا سعنا وحورنا فوف هالشو ويسك داقسة لحظة ويسك كي قرب داقسة تبيتنا ينبتي باتري عينك الشيء كيسانيين وارميش المسبة كتشرة مسبة كتشرة مركا يتريبان نحي إلا المسكنا للرهدين وانا ليهلي وانك بورانا المسكي ما للمسكو أحيانا غاد بوكوز شراي يقفك مسر هذين اياه قف ماشي كتشرة دوه اللي مركابه وانا حي مركاب والبلايا إذا مسكن باصير إله وانا تبيتنا رصاص أياد عضي رصاص بعد عضي رصاص تيد عضي رصاص مركا رصاص بعد عضي شو waxaan ag jooga xero lagu tababaro ciidankii Itoobiya la gelin jiray ee faqashku lahayd ee jaabadaha ayaa meesha lagu tababaraya ciidanka lagu tababarayo ma ogi xeradiis rasaas baa dhacday inantii madka doondoonaysa tiri waa askartiyo soo alla xabad waa maxay wiilo waa askartiyo soo doonatay bay tiri سكاروي تبي ترى ور حوله حق أنا ضدنا أنا حسكي بنقول شلون مكرناس حولي بحقي لو كلا ضدي حولي اللي كلا وض دبيت واحد عضي إن أنت واحد الرصاص بعد عضي واروا عسكرتي تبي ترى ولا جاي حولي بيدين تبي ترى واسين نحي والمرة مسكي بابا كول لقوق هذا الهاي سكارور دساد حسكن سوق قلي عسكرينا حبت بو كدبا كيني هذا حسكن جوغا بتسكدمن عندنا كوبوغا حسكينا حبدي كو دحتمي ور نوعاسay galay maalintaasi waxa igu dhaaftay halka waxaan nin raadkiisa ka noqonayaanahay halkaasaan ka baxay waxaan meel la yiraahdo abaarso la yiraahdo ayaan ku baxay abaarso markaan ku baxay abaarso markii aan ku baxay meel kayn ka sokaysa ayaan galay kayn jiqa awal waanigii markii waagu baryayo raadsan jiray meelaan god ama meel jiqoon ku dhuunto meel yaroo kayn le ayaan helay jiridii halkii ugu badnayd baan dhex galay halkii markaan saa u galeen fadhiistay ayaa waagiina u barey nin iyo geed baa la kala gartaa gaadhi baa soo guuxay gaadhida faqashtu ugadan jirtay waa la yaqaanaayo marawaxad yar siyaadaha bay ku xidhi jireen dhiga lacagtaa la odhan jiray markaa baroonadaa la odhan jiray maxardii xooga wii bay odhan jireen laankurusarey ahaayeen laankurusarkii wii lahaa ayaan guuxiisii gartoo war wallaahi waa gawaadhidii koonfeed casta kuwaasoo guuxaya waabuu igu soo dhawaaday indhihii raabow shidan oo ninkii geed baa la kala gartoo layrkii weynaa u baktiistay waaban arkay show laamaydii baaban ag fadhiya anu waxaan isku haystaa inaan marayo eeriya gabiley oo aan halkaa arabsiya gabiley eeriyadeedii aan ka baxayaan isku haystaa show ilaa ninkaygana waxbaan joogaa baaso dabeerto gaadhigii markuu igu soo inta laamid ii jirta in leeg bay laamid ii jirtaa gaadhigii halkaa markuu soo socday kuu soo socday moosaadee waan yaabay kor baan u fadhiyaa gaadhigii baa halkaa ila simanoo kalo ayuu soo joogsaday way ka degeen ilaa show control weeyaan mee bay yidhahdeen kuwii controlka joogay la hadleen waan arkay meeshii dad joogo waa kaasay yidhahdeen gacantay xaggaygu soo fiiqeen
madaxay kacay waxaan sii ilaahay 4 cisho ee soo socotay waan maalintii afraad baan ku jiraa oo waa ciidii baa laga baxay maalintii ciidda koobaad 7 kana waan dhacay jeelka waan ka dhacay ma garanaysa 7 kan ka dhacay marka maalintii ciidii koobaad weeyaan waxaan sidee lagu qabay itaalad kaga ordan ma lihide halkaas ku dhamaado maxaad yeeshaa waxaad yeeshaa markay ku qabtaan ee gaariga ku saaraan qoryaha sida wax ku qabsanaya iska dhig xabadda isku fooriyo adoo noolyaan meeshii lagu geynay imtixaan kaliya bad kaliya lagu la gelin si aad u sii dhiban lahayd inaad argeysa gaari falowgeed qabo anoo taa ku fikirayo gaarigii soo socdaa kolkuu ugu soo dhow yahayna uu kala jeediyo dabadab uu soo galaya askarteena qaar baa soo lugayna soo ka degtay waan garanayaa saalax buuriye qabaa ku jiro raggii koofeed casteen la garaaci jiray rinkii ugu xumaa ka mid ah koofeed casteen garaaci jirtay waa raggii ugu xumaa buu ka mid yahay saalax buuriye qab ayaaba soo socdo arkaya kolkaan arkay inuu in yar ii soo jiro ayay naftiiba iga dhacday koomaan galay markaa ilaan dhowr cisho 4 cisho waxa ma cunin bilaa cuntaan ahay biyo yar mooyaan waxaan helo kale ma jirto markaa intii yarayeen hayay energy-gina xuuf petro koomaan galay anoo haddana fadhiya tabatay indhihiiba dambay noqdeen waxa dhacay war uma hayo gaarigii halkan show meeshanaan galay iyo waxaan la tilmaamayaa dameero jaada halkan lagu furay xidhkan markaa ciidanka koonfur castaa magaalada soo gelin jiray jaadka dameero marka Itoobiya laga soo qaado xidhkana lagu furay waxaan leeyahay aaway waa jaadkii waa goorida ilan geedkana ku jira dhinaca kale baagag kaga jira jaada nimankii jaadkii way gaariga ku gureen way ku tunteen anu waxaan u haystaa in aniga inta la qaadi gaariga laygu dul tumanayo gigigta shaqo dhanan dareemayo waxaan u haystaa aniga dabeetana gaarigii wuu iska rasaystay jaadkiisii wuu la dhaqaaqay weli laabadii baan ku jeedaa saasaan u fadhiya indhihii buu iga libdhay gaarigii kolkuu kantaroolkii tegey halkii markuu istaagay ayuu xabad riday askarigii kantaroolkii qorshihii jaadka doonayay marka lagaa nixiyo waad gamaadaa marka wax kale lagu dhuftana shirdhaca kaa kacda xabaddii rideen ayay waxaa iga kacay qolof weyn sidii wax soo toosaa noqday gaarigiina uu sii muuqda xabaddii baani way kugu dhacdee halkay kaaga dhacday waan istaataabtay ma calooshay kaaga dhacday maxagganay kaaga dhacday dabeetana show waxba iguma dhicina meeshii baa laygabo ilaahay aniga dee kurtin iga dhigya kii dameeraha waday noqdaya laan yaroo sogo noqdaya wuxuu alla iga dhigay aanu ma garanay laakiin way ku arki waayeen marnaba ma noqon karayso waynu tegi doonaa insha Allah meesha laanka uu ku kaajay hadduu geed weyn imka noqon ilaa 19 sano ka soo wareegay waa meel la arki karo dabeeto gaarigii markuu iga tagay waxbana meel la xabad ku dhacdanaan waayay ayaa waxaan ogaaday inaan noolahay fartii fadhiyo waxba jirin dabeetana anigiiba dib u dhaxay waxaan waryahay waad gaftay ilaahan habeenkii ilaaha saalax buuriye qabku dul keenay ee kaa kaxeeyey wallaahi inaad noolaato doonaya waad shakisan tahay shakigan iska saaro ilaahanaad habeenkii maalintii ka dhuumanayso eed habeenkii uun aaminayso ilaahay habeenkii maalintiiba uu kugu filan yahay waxaad gashay gafi 2 ragcadood baan tukaday oo salaatul shukriya ilaahay ninkan iga dul dhaqaaji waxaan aaminay habeenkii maalintiiba ilaahay waxaan aaminsanaa uneen habeenkii maalintii oo god ku jiray waan ilaahay halkaas saalax buuriye qabintu ku dul keenay dhaqaaji wallaahi ina bariiska ku hari badan yahay nino nolol kaama dhimasho kaama dhawee xamil baan siro calooladay dabeetana markaan saa isku waaniyey ayaan daabeedina arkay abaarso waxaan daabeedda wax ka cun oo noo seed wax ugu cuntaa 500 baan istaam garnas ninkiisiye 500 wax ku iibso waa magaalada daabeedda ka meeshii beeda ka magaalada joogo wada garanayaa waana dawatan dhulkii badooy lagu wada baaray magacaagii dhulka laga shaacinayay waa lagu wada raadinayaa seedu aamin waaye maxaad yeeshaa ma dhaafi karto 4 cisho wad qatan tahay hadaba seen yeelaa dabeetana waxaa la yaabi jiray dawladu markay dadkan waalwaale gudaafada ku jirayaan oo basaas ayaa la yaabi jiray gudaafadeero ay magaalada dambas ku shubtaan tago wixii dambas yaalay iyo wixii waxyaale baa iswada mariyay waraaqiina waa gurtay madaxiina halkan bacay iskaga xidhay halkan dhegta wax ka laalaa halkan wax ku xidh
wixii daasadii iyo kartoonnadiina waan xagashaan ku qaatay nin waalin laga qaadanaya waan tabcaan baaban oo lugaan jiidaya oo dee maxay leeyihin jilbaahigan bararka iyo dhabadda leni 5 bilood la garaacayaan oo toorjan lagu waday dabeeta daabeedii waxaan is idhi waalin wax kaga cun nin waalan baan u qalab qaatay maarta yaa dabeetana laamidii baan ka tallaabay halkii baanu in abaarsa tahay gartay 2 makhaayad yar ka hor quraacanayo jaadla ah iyaan madaxa u gundhiyey way iga gabbadeen 2dii bileed baan kala booday faraqii macawistii aan xidhnaa ayaan ku shubtay maxalxoodii de iyo shaah iyo wixii ma ku ritay dee waa nin daabeed joogo 2 bileed buu kugu dila haddaan ku qaatay ulxooda kan makhaayadda leh oo ku bixin maayo dabeetana 2dii nin ee quraacda ka boobay nin ugu naxariistay ninna uu iga soo daba cararayba kii kalaa iga qabtay kii hudheelkana waxaa iga qabtay ninkii hudheelka iyagu xiba ninkanaa iga qabtay waa ninka iska dawaar quracdaana bixino waa layga celiyey markii layga celiyey ayaan laxoodaydii la tukumo waxaan si goodkaa biyuhu ku jiraan bad iskaga cabbiyey iskala soco haddaba waxaan xasuustay hees yaroo habeen dhaweydoo aad barnaamijka habeenkaa qaybta hore iga qabatay ayaa tiifiga laga soo saaro waan yaayo hees yaroo jabuuti baa laga qaadi jiro ninka waalane waran qaatay iyo yow kala warrama wiilasha yare maxay saa u celiyada waa waabuyanaya u kala warrama heestii baan xasuusto waxaan idhi waar waalidan haddaad kaynta la gasho loo jirkiina soo dareeraan iyo adhi jirtii dee adhi jir iyo loo jir yaroo kuray kaa heshay meel cidlo ah nin waalan dee naftay kaga goyn markaa waalidan mar haddaad laxoodii ku soo qaatay ku anfici mayse way ku diliyeen waalida baabi dabeetana wixii baan iska baabiyey gal yar baan tago wixii oo dhan baan iska hagaajiyey laxoodii baan meel la dul tago cun baan is shaw jidiin kalow 2 cisho hadduu wax mari waayo wuu iska xidhmaa dabeetana biyo ku qoosh haba sheegin way iga dhaadhici weyday dabeetana maxaan sameeyey mooral jab baa igu dhacay waxaan noo dee faqashoon kuma qaban yaabad cidla ku baktiye maxaad samaysaa qof ku nasiibso qof isku dhiib ee ha ku kaalmeeye ma gabadh baad ka dhigtaa sanin gabadhaa malaa naxariis badan waar iyana tan jaarkeeda igu warrami wallaahi khatar baana ka bixi waar ninku ama ha ku iibiyo ama siduu doona ha yeele nin isku dhiib dabeetana reer baan ku baxay nin baa ka soo kaadi tegey anigu waddadii waxaan ka soo raacay ninkii xaggaa u socon lahaa laamida show xagga dhinacii kale baan ka soo raaco malowlaan moodayaa duburihii balligay abaarsaad ila waan kala rogmanayaaye malowlahanaan moodaya duburtii oo qaybtii aan ka baxsaday qaybtii militariga laygu garaaci jiraa baan ku soo socdaa le oo waddadii ma dhinaca kale ka soo raacay reer malowle ag yaalla ayaan ku soo baxay nin baa ka soo baxay waa mina subax hore wuu soo kaadi tegey ninkii oo kaadshayaan ku soo baxay ninkii baan isdul taagay wariyaa ninka kaadshaya waan u kaadiyo cawro iyo nin wax arkaya mayhi waan baahanahay waar adeer waxaan ahay khadar ma maqashay khadar baan ahay haddaad derajo doonayso haddaad magac doonayso haddaad ilaahay wax amaahinayso kaad intaba keenaysay baan ahay markaa walaal diyaarad baa iga dul guuxday taa guuxasaana anay raadinaysaa baan ninka caynkaasee magacaa lee reerkaasee caynkaasee jeel ka soo dhacay dee dawladdu raadinayso ee dilkahaa baan ahay markaa ama iibi ama ilaahay dartii ii bixi aday tala kuu taalla itaalan kaaga cararana ma hayo waa adiga ay arkaya si uni dheh saa doontanay dheh haddaad doontana derajo ka dherigda ilaahay koonu ku xisaabiyo oo madaxda igee laakiin waxaan kaa dardaarayaa ahmin baan ahay iibgelaye saajimada tuulaha jooguna hay geynay haddaad iibinayso iimaan la'aani ku qaado waxaad ka iibisaa nimanka madaxdaa u tag ee wax ku siin karaa oo halkaa iga soo iibi ninkii ilan waa geltii imanka laga bilaabo haddii la iskuu kaa dul yimaado waan kaajayey reer baan ka soo baxay ma shaqaynayso laba wada estere baan nahay markaa ninkii uu didayaa dabeetana ninkii dhexmanaya go'ahwanaa baa dhididay dabeetana wuxuu yidhi waxaan ku yidhi waxaan ahay nin caynkaasoo sacad muusoo jeel ka soo dhaco magacaa layla saas maasuu yidhi ma yihid waxaad tahay jaadle nin ree hebelaad tahay qabiil kale iga dhigay dhuljiif baa xalay ku helay deglaad ahayd berigaan waxaa caan ahayd reeraha dushoodao dhan maydka ninkii markiiba wuxuu goostay inuu bixiyo siduu i bixinayay buu markaa falowgeed qabtay waar jaadlaad ahayd
dhul jiif waxaa lay ku helay deglaad ahayd reer walba meydkooda waa laga soo dulguri jiray ka dhaawaca ka ay xabadba ku dhufteen iska caadi bahayd beriga jaadlaha meelaha lagu dilay dee kaymaha hoostooda ee jaad ka soo qaateen kii baa tahay waan kugu dulkaaje mar damba waxaanad ka sheekaynayso ha ka sheekayna ka bax wir badaha gacantuu jiiday bal may lacagtooda daystaa bal in kaarmooy jaadla baas jaadka baas mays wuu ooyey islaam baa reer ka soo kaa tagtay islaantii baa tiri waar ismaaciil ninkaad jiidaysaa muxuu ahaa waxay tidhi ana dhegaystaan daayartu wixii dhulkan loo soo galay ha fahmaana daada adeer dhibtii dhulkan ka carruurta 10 bay u taybdaa dabeeta ninkii naagtii baa tidhi waar ninku ismaaciilow muxuu ahaa jiidaysaa nin jaadlaahoo dhul jiifkii xalay helay oo halkan lagu dilo intii yaray degtii laga furtay weeyaanoo waa meyd oo naf kuma jirto halla balaaya idinku dhacdayoo aqalkii buu geliyey neef buu ii gowracay qisada ugu cajaabsan halkaasay ku jirtaa neef buu ii gowracay dharkii buu iga furay digsi buu dab saaray aqalkeena dabsadaa buu ii diiriyey dabeetana cunihii laxoodii way ii guntan tahay laxoodii wuxuu iga daadiyey caano yar buu soo qaaday jaadkii xalay u cunayey buu garaabadiisii intuu budliye afka iga tufay joyskii intanaa furmay subag yar buu carabka ii mariyey caano yaroo dhaaniyo waxbuu isawiy jal buu igu yeer qulaamiyey dabeetana kol wuxuu mariyaa badhidii neefka kolle biyo milixluu i mariyaa kol gaas buu i mariyaa jidhkaygoo wada rabadh oo taagmay ayuu lugahaygiisaa u celceliyaa caw buu dhigo halkaasuu i jiifaa labada lugood buu ka ridee uu duugayaa jidhkaygii buu isku celcelinaya dhidid ka dhacayna wadayaabta dabeeta ninkii ayaa neefkii uu ii qale ma garanaysaa mididii ku gowracay tooraydii oo halkan taalla yaan dhilistii kala baxay shaydaankii baa wuxuu igu yidhi ninkani waa beenaale neefkanu qalaya waxaan waa riwaayo faqashtii buu kuugu maqan yahay ma raggii buuraad ka fiican tahay sawtii beriiskoo wada bislaanaya loo yimidee la wada gowracay nacasow adaaba yidhi dee u tageen madaxda sare ninku cid buu kuugu maqan yahay isaga dil isagaba ka khaariji isna naftiibaabaa isagoo wuu duugayaa wuu iga shaqaynayaa labada lugood buu ka ridaa saasaan u jiifaa dabeetana halkan calooshiisu ka dhowdayen labadii lugood buu ka ridi maha calooshiisa halkan kama dhowa dee mididii dabeetana uu soo gala aqalkii oo tooreedii buu isjiri dayday dhilistii buu waayey dhilistii ayuu waayey waa mee tooreedii waa tooreeda neefka igu qalay mugsoonti kii baan na ku qalisleeyahay dabeetana tooreedii buu waayey war maa dibaddaad dhigtaan oo inuu sii daydayaan diidaya hoosteydana ka eegi maada waa kii bacawda isagu ii dhigay anna halkan bay ku jirtaaba hoosteeda dabadaaban hayaa dabeetana uu waayo malaha oodaan dhex dhigay oo dibadduu baxayo waxaan markaa goostay markii kusoo dulfuulu duugiye wax silaa halkan calooshii bay ka dhowday maaha 3 jeer uu degdeg u gaarsiiyo dhuluquluquluqo dee markaa xaggan buu ciiri maaha dabeetana saas samee baan sin dabeetana ninkan haddana dhididkiisii waan ka yaabiyo xiiqiisii war malaa ninkan waa nin islaam malaa ninkani waa nin islaama dabeetana waxaan damcay shanqadha reerka yaan xafiday jeeska yar bahda markanaad baahan tahay wax walba waad xafidaysaa shanqaraha waxaan si reerka marka shanqar kale ku soo kordhe qabii askartoo qafadh leeya waxaad maqashay baqashbaqashiyo waxaad maqasho marka hadday islaani caana kaa qaadayso islaanta geli hadduu isaga ubacdiisa halka keenana isagun geli markaa wax dil laakiin bal intan uu shaqaynayo kaa duugduugayo balu yarkaadi ninka waxaan ku yidhi magaciisa ismaaciil waa tii islaanta ilaamay magaras reerku ayoo reer samataro war magacan reerkana samatarka hay dhaafin magacana ismaaciil hay dhaafin waayo waxaan si haddaad noolaato laguma qabto haddaad reerka tilmaanto waa dhib markaa arabsiyan dul joogan oo moodayaayo samatar cabdaliya samatar maaragtay samatarkii reer arabsiyad inuu ku yahay ma kala garan karayo dee ilan waayo dubur halkan laalihiis waxaan moodaya meeshan malowley ayaan duburtii u haysta oo in arabsiya xaggaa u dhaafaan isku haysta aduu qisada ugu cajaa'ibsan taasay ahayd ninkii wuxuu hayey habeen aniga minas wax u tegey saacaddii aan u tegey saacaddeedii ayaan toosay waan gamcay anoo gamcayo cuntaday siinaya cuntada yar yar buu siinaya calooshaydina saanay u soo noqotay
taqwadaydina way soo noolaatay timihii aan lahayo garhkiiyo wixii aan lahayn jeel kala soo baxayna anoo hurduu iga xiiray gebigaygoo dhukur baanahay 9kii aroornimaan baraarugay anoo durba inay nafiigu jirto in nafiigu jirta anoo durba nafi soo gasho xoogaa enerji helay ayaan kacay wuxuu igu yidhi ninkii waar nimaanu ilmaadeerno halkan agtayda degan ayaa awr gurgurshaayo leh awrkaasaan soo kaxaynayaa dabeetana waan sida gurgurshaaga yaan samaynayaa waan giblayaa awrkaasaan kugu kaxaynayaa nin soconay karaya mayid jilbahaygu dee waa buurtaa xiniyahan sitaa baaldi buu leegyahay dee 5 bilood baa toorjana lagu samaynaya siligii jeelkan ka dhacayna halkan uu iga jaxay caloosha ayuu isna iga jaxay markaa nin iska dhaawaco naafa ah ayaan ahay marka annaga saaxiibadayo example iminka nin halkan taagnaayo cali madow baa la yidhaha waa dhalinyartii maaragtay markaa gruubkii yaacay buu ahaa markii annagana la qaqabtay nin qureesh la yidhaa isna halkan u degan yahay maxamed xasan nin la yidhaa dee gruub dhan baanu haynoo markii annagana la qabtay bay ooda jebiyeen oo yaaceen markaa waxaa ka mid ahaa ninkii weerar la yidhaa malaa xaafad baaba loogu magac daray weerar baa la yidhaahdaa maxamed baa loodhan jiray wuxuu ahaa taliyaha guulwadayaasha kooxda iyadu ahaa markaa waxaynu si anba qaadi doonnaa haddii aan la yidhaa inta kale dee waxaynu u gudbi doonnaa abaartaynu tegio meelo kaleynu tegi doonnaa joogaan waa halkii habeen ahaa iyo maanta shaybkaygu siduu yahay waad aragtaan maalinta habeenkaanu soo gallay saasaan ahaa waa habeenkii aanu rarayn oo halkan rasaasi nagaga soo dhacayso iminka wasiirka arrimaha guduhu uu fadhiyo waa halkii rasaastu nagaga soo dhacaysay halkanna waa halkaan maranay maalintaas shaybkaasaan lahaa maantana shaybkanaan leehay marka waxa weeyaan waa 1988 waa habeenkii halgankii halkan lagu soo galay wey maantana shaybkanaan leehay